magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxaa maanta soo gaaray wasiirka maaliyadda dalka Itoobiya ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya hadaba socdaalka gudoomiye Axmed Shide waxaan wax ka weydiinay wariye Maxamuud oo isagu isha ku hayay socdaalkiisa. Maxamuud maxay daaran tahay socdaalka wasiir Axmed Shide ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo maanta ku yimid magaalada Jigjiga? sida la ogyahay wasiirku dhowr jeer ayuu dib u dhacay oo magaalada Jigjiga laga sugay inuu yimaado isaga iyo wafdiga hogaaminayo waxaanan wasiirku uu socdaalkiisana daaran yahay arrimo la xiriira shirarka xisbiga iyo abaabulo dhanka maamulka ah. waxaan ognahay in lagu dhawaaqay qabashada shirweynaha xisbiga. muxuu Axmed Shide ku soo kordhin karaa qabanqaabada ka socota magaalada Jigjiga? xogahan ka helayna magaalada Jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxay sheegayaan in arinta ugu muhiimsan ay tahay shirweynahaas in la qabto shirweynaha xisbiga la qabto si dhameystirkii dawladda iyo waxyaabo fara badan oo dhinna horay loogu socdo loo dargaliyo waxayna noqotay arintan caqabad hortaagan maamulka oo waxa loo hanqal taagaya mar walba in la dhiso xisbigi. waxaan ognahay in khilaaf uu ka dhaxeeyay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar iyo wasiir Axmed Shide. imaatinka Axmed Shide ma la dhihi karaa waxa la dhameeyay khilaafkii muddada soo jiitamayay ee u dhaxeeyay Axmed Shide iyo madaxweyne Mustafa Maxamed Umar? lama oran karo khilaafkaas muddo dheer buu taagnaa oo wuxuuna la kowsaday qabashadii Mustafa uu xilka qabtay madaxweyne Mustafa uu xilka qabtay mana jirto meel ay ku cadahay in wax is-afgarada uu dhacay marka laga soo tago sawir aan la garanaynin inuu ka turjumayo wax heshiis oo prime ministerka dalka iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo ninka la yiraahdo wasiirka ay magaalada Addis Ababa shir ay ku galeen sawir laga arkay marka laga reebo marka ma jirto meel umana badno inay maaragtay wax heshiis uu dhacay waxaan mar walba ajirta cabsi aha in khilaafka xisbiga uu mar walba dib u soo cusboonaan karo. maxay tahay marka hadda caqabadaha ku gadaaman xilli xaadirkan qabashada shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo muddooyin kala duwan soo jiitmay marar badanna balama loo qabtay kadib dhacay? caqabado badan baa jira waatii markii horeba markuu khilaafku bilaabanayay habka awood qaybsiga gobolada iyo deegaanada iyo sida loo qaybsanayo ergada habka loo xulayo xubnaha guddiga fulinta caqabado badan oo noocaas ah jira waxa umana badno in si fudud ay ku dhamaato marka la fiiriyo caqabadihii horay u jiray oo aysan jirin wax heshiis oo laga gaarayna jirin waxay marka noqon doontaa in muddo dheer ay jiitanto haddii mar caqabadihii horena aan go'aan laga gaarin kuwa soo socda ee la isleeyahay isha lagu hayo ayna jirin wax fursad oo uga banaan labada dhinac ee is hayay marka caqabaduhu way badan yihiin.